waadan salaamay dhammaan meel baad igala socotaan ku soo dhawaada mar kale iyo Xujaale podcast. Barnaamijka maanta waxaan ku soo qaadan doonaa muhiimadda ay leedahay iyo faa'iidooyinka laga helo mentorshipka. Waa maxay mentorship? Marka hore se adigu ma leedahay mentor ama la taliye, qof kula taliyo, qof kala taliya dhanka waxbarashada, qof kala taliya dhanka shaqooyinka iyo sida lagu helo, qof kala taliyo noloshaada iyo career-ka horumarka aad ka gaari lahayd, qaabka aad ku gaari lahayd. Haddii ay jawaabtu tahay maya, fadlan ila soco. Barnaamijkan ayaan ku soo qaadan doonaa faa'iidooyinka laga helo, waxa uga baahan tahay qofka mentorka ah, iyo sidoo kale haddii aad heshid waxyaabaha oo la hortagi lahayd iyo sidaad maaragtay mentorka uga faa'iideysan lahayd. Marka hore mentorka ama qofka la taliyaha aad dooranaysid waa inuu noqdaa qof ka aqoon badan, ka khibrad badan, aad isku career-na tihiin. Koorsooyinka aad baratay ama barnaamijka adiga xirfadda aad u leedahay qof leh balse ka horeeyo oo horaan maaragtay u soo shaqeeyay ama hadda shaqooyin fiican haysto oo meesha aad higsanayso qof joogo. Qofkaas marka wax uu kugu soo kordhinayaa. Wuxuu ku noqonayaa qof ku tuso wadooyinka aad ka u maray si hadhow adiga si fudud u martid uu kaaga leexiyo. Marka waa muhiim adduunkana maaragtay dawladaha hormaray xitaa barnaamijyo waxay leeyihiin iyo hay'adaha ka shaqeeya iyo dawladaha mashruucyo loogu talagalay mentorshipka oo dhalinyarada wax baratay lagu dhiso career-kooda. Marka waa muhiim inaad heshid qof ku garab istaaga oo mar walbo aad talo iyo tusaale aad u doonatid inta aad ka gaaraysid heerka aad doonaysid inaad nolosha ka gaadhid. Marxalado kala duwan iyo noocyo kala duwan ay leeyihiin mentoradu ama dadka maaragtay la taliyayaasha ku noqon kara. Waxaan rabnaa marka hore qofka markuu basic asaasiga iska soo dhisayo raba inuu shaqo helo wuxuu u baahan yahay qof coaching siiya, CV-giisa u fiiriya, qoraaladiisa oo la fiiriya, talooyinka la qaata, sidoo kale qof maaragtay connectiono iyo linkiyo iyo meeluhu maaragtay higsanayo qof u fudeedeeyo ayuu u baahan yahay. Xagee laga heli karaa marka qof mentor ku noqdo oo ku caawiyo heerka doonaysidna ku gaarsiiyo? Meelaha ugu badan oo laga heli karo dunida hadda la joogo waa social media-ha. Dad waxaa jira boqolaal qof oo heerka aad tigsanaysid mar hore soo gaaray oo ka caawin karo inay talo iyo tusaalooyin ku siiyaan. Balse marka hore intaad la xiriirin waxaan kaa doonayaa page-kaaga iyo profile-kaaga inaad dhistid. In magacaaga iyo wejigaaga ay islahaadaan. In waxa aad baratay iyo waxa aad ka sheekeynaysid, waxa post gareynaysid dhammaan ay noqdaan wax professional ah. Maxaa yeelay qofkan aad la xiriiraysid marka intuusan kuu soo jawaabin ka hor wuxuu sameynayaa page-kaaga u fiirinayaa. Wuxuu eegayaa digital footprint-gaaga, waxa raadka aad digitalka internetka aad ku reebtay ayuu eegayaa. Muuqaalkaaga iyo page-kaaga iyo waxa sheeganaysid iyo career-kaaga ma isleeyihiin. Ma yahay qof markaan wuxuu isleeyahay qofkan qof sumcadaada wax u dhimi karo. Haddii aadan markaas aadan iska dhisin page-kaaga uusan iska kaa dhex arkin maxaa yeelay ugu qofkan waa uu soo maray meesha aad joogtid maanta. Hadduu iska kaa dhex arko in qof dhalinyaro dadaalayo page-kiisa uu dhisan yahay wuxuu ka hadlaayay iyo wuxuu post gareynayo iyo page-ka uu follow gareeyo ay yihiin wax la xiriira koorsadiisa iyo takhasuskiisa iyo wuxuu higsanayo waxay u badan tahay qofkaas inuu ku soo jawaabo. Saas darteed waxaan kaa doonayaa marka hore inta aad qofka la xiriirin in aad isu keysisid qofku yahay. Meelaha kale oo laga heli karo qofka mentorka ku noqonayo waxa weeyaan xafladaha iyo eventiyada waaweyn oo magaalada aad joogtid ka dhacayaan oo kale oo barnaamijyada la xiriira waxa baratay ama takhasuskaaga. Eventigaas oo kale markaad tagtid waxaad helaysaa dad khubaro ah oo ka hadlaya barnaamijyada aad xiiseynaysid. Dadkaas markay maaragtay xafladda dhamaato waxaad ka heli kartaa contactyadooda inaad ka soo qaadatid, page-kooda internetka ku leeyihiin inaad heshid, aad follow gareysid, aad la socotid ama qof garanayo kale meesha joogo inuu isku keen xiro. Kadibna markaas aad u soo bandhigatid inaad maaragtay ka codsatid inuu mentor qofkaas ku noqdo. Haddii aad jaanis ku heshid qofkii aad danaynaysay oo mentorka ku noqon lahaa uu ka ogolaado maalinka ugu horeeya la kulmaysid waxaan kugula talin lahaa saddexdan qodob inaad sii diyaarsatid. Waa inaad goalska aad leedahay ama yoolka aad higsanaysid inuu kuu qornaadaa. Qofka aad u tegaysidna markaas mentorkaaga inuu arkaa meesha aad u socotid si uu kaaga caawiyo. Waxaa la doonayaa inaad qofkaas u sheegtid waxaad tahay noloshaada inaad uga sheekaysid. Waxaad soo baratay taariikh nololeedkaada, waxyaabaha aad jeceshahay, meelaha ka soo shaqaysay, khibradda aad leedahay. Waxaas dhan waxay ka caawinaysaa asaga hadhow inuu diyaarsado qaabku uu ku caawin lahaa iyo support-ku uu ku siin lahaa levelka ay gaarsiisan tahay ayuu ka cabir qaadanayaa noloshaada markaa uga sheekaysid. Midda saddexaad waa inaad kula heshiisaa waqtiga iyo qaabka aad ku kulmaysaan. Bishii ma hal maalin aad kulmaysaan, wiigii ma hal saac aad kulmaysaan, waxaas dhan waa inaad ka heshiisaan oo wixiina ay qoran tahay. Sidoo kale waa in asaga wuxuu rabo u yeeshaa maxaa yeelay qof mashquul badan oo waqtigiisa jaanis ku siiyay oo si voluntary ah kugula shaqeynayo ku caawinayo waay. Marka waa inaad u fududeysaa waqti alla waqtigu rabo. Haddii uu rabo maaragtay Zoom xataa inuu kugula kulmo ama Skype ama video inaad maaragtay ka ogolaatid. Hadduu meesha shaqadiisa uu asaga ku dhaho igu imaa fursadda markaas baa heli karaa waa inaad maaragtay
adiga dan leh ugu tagtid meeshaas sidoo kale waxa la doonayaa inaad la socodsiisid meeshay wax ku marayaan taako waa inuu la socdaa tusaale ahaan 3 bilood ka hor goolkii aad lahayd oo aad ku heshiiseen haddii uu maaragtay ku gaarsiiyey inaad markaas u sheegtid dhexdeedu waa mahadsan tahay achievementigii aan rabay waan gaaray adigaan i gaarsiiyey waana kaaga mahad celinayaa maxaa yeelay qofkan oo mentorka ku ah qof oo fix adiga noloshaada kula jiraayo forever ma aha waxa laga yaabaa inuu meeshan ku ekaado aad uga mahad celisid kadib marxalad kale inaad adiga u baahan tahay mentor kale saas darteed mentorku wuu isbedelaa waxa la doonayaa marka adigana meesha rabtay marka gaadhid inaad xusuusnaatid qofka adiga kula midka ah booska ka hooseeya joogo inaad caawisid oo mentor kale noqotid isagana markuu booska ga imaado qof kale uu gacanta saa u soo qabto bulshadii dhanna saas ay marka ku noqoto bulsho guuleysatay intaas ayaan kusoo koobayaa barnaamijka maanta waxaan rajaynayaa inaad wax badan ka faa'iiday haddii aad ka heshay fadlan like ta saar haddii aad boggan ku cusub tahayna subscribe garee si aad uga faa'iidaystid barnaamijyada soo socdo intaan ku kulmi doono barnaamijka xiga waxaan kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo